halkan war-saxaafadeed ka soo baxay xisbiyada mucaaradka ah iyo murashaxiinta madaxa bannaan ee dowladda deegaanka Soomaalida ama Somali State 18 April 2021 deegaanka Soomaalida iyo guud ahaan dalku wuxuu isu diyaariyay inuu ka dhaco doorasho xor iyo xalaal ah kaas oo la filayo inuu u socdo sida ay u diyaariyeen guddiga doorashada annaga oo tixraacayna nidaamkii uu u dejiyay guddiga doorashadu markastana ku tababaraynay dhammaan taageerayaashannada inay uga qayb galaan si nabadgelyo ah oo xor iyo xalaal ah gebi ahaanba geedi socodka doorashada markaan aragnay habka loo wado doorashadii oo la filayay inay ka dhacdo deegaanka Soomaalida oo baal maray guud ahaanba xeerarkii lagu heshiiyey iyo guddiga doorashada iyo asxaabta tartamayaasha ah markaan aragnay sida loola dhaqmay guddiga doorashada markaan aragnay sida ay isugu milmeen xisbiga talada haya iyo guddiga doorashada lana afduubay guud ahaanba geedi socodka doorashada maamulkii doorashaduna uu gacanta u galay xisbiga talada haya ee deegaanka Soomaalida waxaan ognahay in aan lala socodsiinin xisbiyada murashaxiinta madaxa bannaanba dhaqdhaqaaqa agabka doorashada shaqaalaynta adeegayaasha doorashada diiwaangelinta codbixiyayaasha waxaa la garab maray kala horraysiintii wakiilada murashaxiinta iyo xisbiyada oo ay ahayd 15 bari ka hor xilliga diiwaangelinta in xisbiyada iyo murashaxiinta madaxa bannaan wakiiladooda in loo soo gudbiyo kadibna loo aqoonsado kaararkii codbixiyayaasha oo loogu talagalay inay goobo cayiman ay horay guddiga doorashadu u asteeyeen la geeyo in loo weeciyay goobo si gaar ah ay u diyaarsadeen maamulka BB ee deegaanka Soomaalida isla markaasna la siinayo taageerayaasha xisbiga BB-da dadka kalena laga takoorayo oon loo sinnayn shaqaalihii loo soo tababaray fulinta doorashada in gebi ahaanba awoodda lagala wareegay oo ay toos hawsha diiwaangelinta codbixiyayaasha ula wareegeen madaxafiisyada iyo maamulada degmooyinka iyo tuulooyinka sidaa darteedna kaararkii codbixinta ay gacanta u gashay xisbiga talada haya ee BB haddaba ayadoo ay caddaatay in nidaamkan aanay doorasho xor ah ku suuroobi karin xisbiyada mucaaradka iyo murashaxiinta madaxa bannaan ee dowlad deegaanka Soomaalida ee hoos ku xusan waxay go'aan ku gaadheen inaan hakinnay howlgalladii doorashada inta laga saxayo gebi ahaanba geedi socodka doorashada laga bilaabo howlwadeennada guddiga doorashooyinka iyo qaab socodka diiwaangelinta codbixiyayaasha ayadoo si hor leh loo diiwaangeliyo codbixiyayaasha lana kansalo dhammaanba wixii ama la joojiyo dhammaanba wixii kaar ah ee deegaanka yimid kaarar hor lana la keeno iyada oo si hor leh loo diiwaangeliyo codbixiyayaasha lana joojiyo ama la kansalo dhammaanba wixii kaar ah ee deegaanka yimid kaarar hor lana la keeno guddiga doorashooyinka in muddo 5 maalmood ah muddo 5 bari ah gudahood ah wax kaga qabto arrintan xisbiyada go'aanka gaaray waxay kala yihiin jabhadda wadaniga xorriyadda Ogaadeniya ONLF xisbiga xorriyadda iyo sinaanta FEB xisbiga cadaaladda muwaadiniinta bulshooyinka Itoobiya EZEMA murashaxiinta madaxa bannaan oo tiradoodu gaarayso 100 waa mahadsantiin.